shir jaraa'id oo si wada jira magaalada Burco ugu qabteen wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleebaan Axmed Ciise Xagle Toosiye iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa waxay ku sheegeen in lagu guuleystay xakamaynta xanuunka shuban biyoodka oo maalmihii ugu dambeeyay farabaas ku hayay magaalada Burco. Mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale waxay intaa ku dareen inaanay jirin wax dad ah oo shalay ilaa maanta u geeriyooday xanuunka shuban biyoodka, waxayna booyadaha biyaha u dhaamiya magaalada Burco u soo jeediyeen inay u hogaansamaadaan amaawiirta la faray ee ah inay biyaha ku daraan koloriinta. ilaa ma iyo hadda maanta ma hayno wax dhimasho iyo shalay toona oo la xidhiidha kulli wasiirka waxyaabaha gali doono waa hawl caafimaad, laakiin dadaal badan ayaanu ka aragnay magaaladii oo la sameeyay, haday tahay dawladda hoose, haday tahay wasaaradda, haday tahay wacyigelinta magaalada ku jirta 30 baabuur oo wacyigelina ku jira, 10 baabuur oo ambalaasyaaba ku jira, hal allaala halkii wax laga soo sheegayba minute way dul taagan yihiin. alxamdulilaahi rabbil caalamiin tiyada ahayd waxay keentay inaynu ka soo saarno xanuunka badidiisii magaalada. aad baan dadweynaha ugu mahadnaqayaa ee magaalada dhexdeeda oo ah in number 1 waxaan ay u tahay nadaafadu ay u tahay. magaaladii waxa la keenay jaafeer badan baa yaala, koloriintii oo fara badan baa inoo taala. maanta waxaanu xidhnaan halkan uga sheegayaa 2 booyadood oo diiday inay biyihii ku daraan koloriin oo wasaaradii biyuhu hawshoodii gudanaysa ayaa qaar diideen. waxaanu sheegaynaa xanuunku meelaha uu ka istaarma waa biyaha iyo sariibadaha intaynu imika sourceskiisa aynu ku hayno halkan. sidaa darteed biyaha nadaafadoodii ciddii u hogaansami weydaa dee cuqubay mutaysanaysaa. waxaanu leenahay booyaduhu ha u dhaga nuglaadaan, ha naga daayaan ciidamada faraha badan aanu imika dhignay baalaha laga dhaamiyo. waa hawl iyo qarash kale oo aan noo shaqo kale oo dheeraadaan loo baahnayn inaan noo samaynaysaa. waa in loo dhaga nuglaado, dawaa lagu darayaa biyihii. dawadaasi waxay dilaysaa wixii wasakhaaya ku jiray biyaha. xanuunkii hoos buu dhacay alxamdulillahi rabbil caalamiin. ducadii iyo alla barigii iyo dadaal badan oo la sameeyay ayaa sabab u ah. alla bariga iyo ducadana waa sii wadaynaa, dadaalkana waa sii wadaynaa. iminka 2 maalmood oo u dambeysay waxaanu halkan ugu yeedhnay dhammaanba hay-adihii ama UN-ta ha ahaadaan ama kuwa caalamka UN-ta ha ahaadaan. ilaa shalay halkay joogaan welina way joogaan. wasaaradda caafimaadka iyo iyaga siru socday oo halkan Burco gudaheeda aan ugu yeedhnay oo uga yeedhnay fadhiyadoodii Hargeysa aha. hay'adahaasi iyo wasaaraddu waxa gaareen go'aamo waaweyn oo muhiim ah oo lagu xakameynayo laguna tirtirayo haddii alla ka dhigo baaqiga xanuunkan. dadaal weyn oo gobolka iyo dawladda hoose ay galeen, gacan weyn oo ka helay dawladda hoose iyo barasaabka iyo maamulkiisa. dadaal weyn oo wasaaraddu samaysay, shaqaalaha wasaaradda caafimaadka habeen iyo maalin seexan, mas'uuliyiinta oo aad u dadaashay. natiijo wacan baan haynaa maanta. 2 casho u dambeysay wax dhimasho ah may dhicin. numberkuna maanta wuxuu marayaa meel hoose. 87 qof baa jiifa oo iyana dhammaan aad u wada wacan oo aan filayno insha Allah inay dhaqso uga baxaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa in sida ugu dhaqsaha badan uu ilaahay inooga soo afjaro xanuunka isaga awood leh. anagu xukuumad ahaan waanu dadaalaynaa, waxba hagran mayno insha Allah. waxaa dhibaatada weyn haysta waxay ahayd in aanay qofka shubma familigiisu aanu keenaynin meelaha lagu daweynayo shuban biyoodka, iyadoo qaar kamid aanu kala kulannayba diidmo iyo dagaal. sida gudoomiyuhu sheegay ciidan loo diray oo khasab lagaga soo saaray waxyaalana soo maray bay ahaayeen. maanta alxamdulillah aad bay dadku u imanayaan meelaha lagu daweynayo shuban biyoodka. Axmed Kaafi Saleebaan Carab, Qorlugu News, Burco.